Confi waa mid ka mid ah haweenka ugu caansan dunida. Waxa ay ka dhalatay qoys faqiiriin ah. Hooyadeed iyada oo 5 jir ah ayay geeriyootay. Waxayna ahayd qofka kaliya ee qoyskooda dugsi sare ka galay. Nasiib darrose way ka tagtay waxbarashadii. Deegaankii ay ku nooleed ayay ka soo haajirtay si ay nolol dhaanto tii ay ku haysatay ay u hesho. Maanta waa haweeneyda ugu hodansan haweenka iyagu tabcaday hantidooda. Shu Confi waa haweeney ganacsato ah, waa hal abuure, waa Chinese. Waxa ay dhalatay taariikhdu markay ahayd 1970kii gudaha magaalada Shenzhen ee waddanka Shiinaha. Waxayna ahayd ilmaha u yar 3 carruur ah oo ay waalidkeed isu dhaleen. Waxay ka dhalatay qoys fuqara ah oo aad u nolol liitay. Hooyadeed waxa ay geeriyootay iyada oo 5 jir ah. Aabaheed ayaa u shaqayn jiray qoyska, kaasoo ka howlgali jiray warshad uu araggiisa iyo qayb ka mid ah farihiisa ku waayay dhaawac ka soo gaaray warshadii uu ka howlgalayay. Shu iyada oo yar ayay bilowday in ay xoolaha dadka u raacdo si lacagaha ay ka hesho ay qoyskeeda ugu caawiso. Waxa ayna xilligaas dhiganaysay dugsiga sare, balse markii ay gaartay da'da 16 sano waxay iskaga hartay waxbarashadii. Waxa ayna soo aaday magaalada Shenzhen oo ahayd xarun ganacsi ayna deganaayeen qoyska adeerkeed si halkaas ay uga shaqo bilowdo. Durba waxay ka shaqo bilowday warshad yar oo samayn jirtay saacadaha iyo muraayadaha yaryar. Waxay waqtigaas bilowday in ay barato xisaabaadka si arrimaheeda ganacsi ay uga guula gaarto. Sidoo kale waxay ka mid noqotay shaqaalaha sarsare ee warshadaas. Shu waxay aruursatay lacag yar si ay u aasaasto shirkad iyada u gaar ah oo shaashadaha telefoonada samaysa. 2003 ayaa shirkadeedii cusbeed loogu magac daray Linus Technology. Waxayna soo saartaa muraayadaha ama shaashadaha telefoonada smartiga ah, sidoo kale kombiyuutarada iyo agab kale oo yaryar. Shirkadeedu waxa ay ka mid noqotay shirkadaha ugu caansan dunida. Shirkadaha Samsung iyo Apple ayaa ah macaamiisheeda ugu weyn maadaama ay u samayso shaashadaha telefoonadooda. Sidoo kale shirkadda Huawei ayaa ka mid noqotay macaamiisheeda. waana 3 shirkadood ee ugu caansan uguna dakhliga badan ee telefoonada gacanta soo saara. Shu shirkadii ay aasaastay waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu ballaaran dunida. Waxa ay bilaayin dollar ka samaysay shirkadaas. Sidoo kale shirkadeedu waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan dunida waqti xaadirkan. Gabadhii yareed oo dhibka badan la kulantay maanta waa haweeneyda ugu taajirsan waddanka Shiinaha. waana haweeneyda ugu taajirsan dunida. haweenka iyadu nafsad ahaantooda u tabcaday hantida. waxay ku soo kortay nolol adag oo mugdi ah, rajaynimona ay u weheliso oo ku kaliftay inay waxbarashadeedii ka harto. waxay noqotay mid hormuud u ah haweenka iyagoo ganacsiga ku jiro. shirkadeedu waa mid maanta soo saarta telefoonada caalamka loogu isticmaalka badan yahay shaashadooda. hantideedu waa 9.8 bilyan oo dollar. waa hooyo 2 carruur dhashay. Shiinuhu waa dalka ay ku nool yihiin haweenka ugu hodansan dunida, taas ahaan kuwa iyagu hantidooda tabcaday. taasina macnaheedu maahan in haweenka Shiinuhu ay ka caqli ama xirfad badan yihiin haweenka kale ee ku nool dunida.